barnaamijka meeshan maanta u joogno oo aan soo xireyno wejigiisa koobaad qorshaha waxbarashada 5 sano soo socota waana daraad markaan furaayay si fiican uga hadalnay waa waxa la rabaa in lagu qiyaaso shaqada si u socon lahayd anaga ka gobolka Banaadir ka agaasiga waxbarashada maadaama uu mashruucan sanad qaadanayay haddana sida ka cad markaa fiirisay qorshaha haddii November iyo December uu dhamaado wuxuu hawlgalayaa uu shaqays bilaabanaysaa waa 2022 ayuu si rasmi ah shaqays bilaabanaysaa marka waxaan sameynay qorshe ku meel gaar ah oo 2 sano ayaan sii sameysannay macnaha faa'iidada qorshuhu leedahay rabaa inaan idin sheego xafiiskeennii oo cusub ayaa waxaan fariisanay agaasimayaashii iyo maxaa howlwadeennadii la taliyaashii waxaan maxaan sameynaa waxaan isla qaadanay inaan sameysano qorshe 2 sano maadaama xafiiska cusub yahay 2 sano ka gudubnana markaas 5 sano sameysano maadaama marka qorshahan uu soo baxay waxa uu bixinaa qorshaha 2 sano ee kumeel gaarka maxaan ka faa'iidnay marka sanadkan 2021 ayuu noo bilaabanayay 2021 qorsheeyna noo degsanaa waxa kamid ahaa inaan 5 iskuul aan sameeyno muxuu ahaa aan furno 2 xanaano inaan furno iyo qorshooyin kale oo tiro badan priorities kala lahaa 5 iskuul 2 isbuucan soo socday furmayaan 3 waxaan qorsheynaa dawladeedmo ilaa September inta ka dhamaanayso inay dhamaadaan ay furmaan haddii markii hore qorshahaas aan la samaysan lahayn oo waxaas aan la samaysan lahayn in la sameeyo muxuu ahaa qorshe in la sameeyo ina waxa samaysid oo fulisid way adkaan lahayd markii qorshahan hadhowti markuu dhamaado wuxuu naga caawinayaa anaga inaan waxa aan qabanayno naqaano xafiiska hadhowti waxa loo jijibinayaa xafiiska loo jijibinayaa xafiiska wuxuu garanayaa wax kasta waxay garanaysaa waxay ka shaqeynayso gobolka Banaadir wuxuu yaqaanaa maxaa muhiim ku ah 2022 maxaa ku ah 2023 xagee dhaqaalahan ka keenaysaa waxaan soconahay dhaqaale u baahan yihiin wuxuu gobolku bixin karaa maxaa dawladda dhexe aan ka heli karnaa maxaa adduunyada ka heli karnaa ayaa soo baxaysa marka institution ama hay'ad aan qorshe lahaynna marka u dambaysa fashil u dambeeya ama meel ma gaarayso sida daradeed marka ina meeshan isku imaano 3 maalin fadhino waxay faa'iido u ahayd in aan helno qorshahaas aan 5 sano soo socota ku hagayno waxbarashada gobolka Banaadir waxaan rajeynayaa meeshan kuma ekaan doonto waxaad jiri doonaa wada tashiyo kale oo la isku imaan doona dawladda markay khubarada gacanta ku hayay ka soo shaqeeyaan way nagu soo celin doonaan talooyin kale aan ku darsan doonaa ilaa uu ka dhamaado wada tashigu soconaya hadii ESA-ga hadda dhamaaday strategic sector analysis hadda dhamaaday inta jeer la soo fariistay dad badan oo kamid ahaan maanta meesha way fadhiyaan yani aad u badnaa ilaa la dhameeyo midkan hadda socda oo qorshaha 5 sano soo socotana sidoo kale waa la inku soo celin doonaa cidii kale loo baahdo oo khubra waa loo yeeri doonaa ilaa uu ka dhamaado asagana oo qof kastoo naga mid ah inta ka shaqeysa ay taqaano muxuu yahay qorshaha waxbarashada gobolka Banaadir ee 5 sano soo socota hadhowtani wax la qarinayo ma ahane waxa lagu shubayaa website-ka ummadda la siinayaa wax ummadda dhan ay ka warqabtay noqonaysa